barasaabka gobolka Togdheer Xamsan Maxamed Cabdi oo sidoo kale taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Togdheer Axmed Cali Shabeel ayaa waxay maanta sharaf guddoonsiiyeen maariyaha guud ee shirkadda Somaliland Workshop oo kamid ah shirkadaha ganacsiga ee ku yaala gudaha magaalada Burco isla markaasina shaqadaasi uu ku mutaystay dayactir sidoo kana shaqadii uu ku sameeyay qaar kamid ah baabuurta ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer ugu horeyntii goobta shaqada lagu guddoonsiinayay maariyaha guud ee shirkadda Somaliland Workshop ayaa waxa ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Xamsan Maxamed Cabdi taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Togdheer Axmed Cali Shabeel waxaana uu mahadceliyay maariyaha guud ee shirkaddan dadaalka uu la barbar taagan yahay ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale waxqabadka arrimaha bulshada iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa gudoomiye maanta waxaan doonaynaa halkan inaan ku guddoonsiino shahaado sharaf Mukhtaar Cabdi Ramadaan oo haysta geerashka la yiraahdo Somaliland ninkaas oo runtii booliiska gacan xoog la siiyay wax badan nala qabtay baabuurta aad arkayso mid walba isaga ayaa noo riixiyay oo deesaa ka dhigay quruxda badan marka waxaan doonaynaa inaan maanta guddoonsiino shahaadada si ay dhiirigelin ugu noqoto isla markaasna aan u qirno hawshii uu noo qabtay ay wanaagsanay waxaan maanta halkan ku guddoonsiinaynaa shahaado taliyaha qaybta booliiska iyo ciidanka booliiska gobolka Togdheer ay guddoonsiinayaan iyo ay xarunta maamulka gobolkuba muwaadinka Mukhtaar Cabdi Ramadaan oo mulkiilaha geerashka Somaliland oo runtii wax weyn maaragtay u qabtay ciidanka booliiska maadaama uu gabadhadan dabadeena joogta uu hagaajiyay service gareeyay buufiyay quruxda ka muuqata uu sameeyay waxa sida loo yeelay runtii oo shahaadada loo guddoonsiinaya muwaadinka inay ku soo dhiiradaan muwaadiniinta kale ee reer Togdheer oo runtii aan iyagana jecel lahay inay ka qayb qaataan waxyaabaha noocaas oo kale ammaanka lagu sugayo waxaan u ballan qaadaynaa cid kasta oo booliiska kala shaqeysa ammaanka haday noqoto waxtar dhinaca gaadiidka haday noqoto dhinaca informationka haday noqoto dhinaca wadayeynta in lagu abaal mariyo shahaadooyin noocan oo kale ah ganacsatada kalena saasaan ugu baaqaynaa aad iyo aad Mukhtaar ugu wanaagsan yahay runtii shaqada wanaagsan ee muwaadinimada ee u baahan in lagu daydo ee uu qabtay booliiska gobolka Togdheer intaasi kadib waxa isaguna halkaasi ka hadlay maariyaha guud ee shirkadda Somaliland General Workshop Mukhtaar Cabdi Jaamac waxaanu ka mahadceliyay sharaftan ay guddoonsiiyeen maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan aad uga mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta iyo dhammaan taliyaasha kale runtii meesha isugu yimisay ay abaal mariyaan runtii ujeedooyinka aan runtii geerashkaygu runtii u kartay inaan gaadiidkan aan u buufino waxa weeye kow inaan dhiirigelino ganacsatada kuna dhiirigelino booliiskooda iyo dadkooda iyo ciidankooda wax u qabtaan gaadiidkana xagga dambe idin muuqdaana wuxuu ka mid yahay runtii gaadiidada ay ummaddu wada leedahay waxay ummaddu wada leedahay inaan sidaan ummadda waxooda ugu qurxidayna inaan waxa ummaddu ka wada dhaxeeyaan qurxinaa waa wax naga go'an inta iyo inka badan bataliya waan wadi doonaa doo alla ka dhigo geerashkan wuxuu furan yahay muddo imika 4 bilooda 4 gaarina gaadiidka waanu marideena ciidanka waanu marideena waxa naga go'an inta iyo inka badan sii qaban ujeedada kale laakiin aan u leenahay ama wax kale aan islaan wax ku heshaan ma jirto laakiin waxa weeye ujeedkaygu in runtii aan anoo dhalinyaro ka faa'iideysto runtii fursad hore oo ka maqnayd gobolka ay tahay waa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Amaar telefishinka caalamiga ee Somali News Pro